والله يوتيوبرز كويس قصليا يا هس هروح حاجة يقول قاضيو هذا الليلة بانتي مخانو بين سريع شم فهمت أنا اللي سي الحلقة اللي وسيه وأنا على هس تدرس في الحلقة مقرتينه kulanti wacan daawadayaasheena qiimaha leh ee ku xiran barta aan YouTube ku leenahay ee Badda Cas Media oo aan had iyo goor idinkugu soo gudbino dhacdooyinka maalinlaha ah gaar ahaan kuwa ugu xiisaha badan ee Soomaalida oo aan warbixin idinkaga soo sameeyno oo kuma aysantiin sida had iyo jeer aad noola socotaan muuqaalkan waxaan ku soo qaadan doonaa qiso cajiib ah oo dhex martay fanaaniinta ama lamaanaha Mursal Muuse iyo Hodan Cabdiraxmaan muddo hadda laga joogo 6 sano ama sanadii 2013 oo hadda ay ka hadashay ama ay ka sheekeysay fanaanada Hodan Cabdiraxmaan oo dib u soo xasuusatay waqti fog hadiyadan waa mid aad la yaabi doonto qaabka ay u heshay fanaanada Hodan Cabdiraxmaan oo iyadu ay ka sheekeyn doonto inta muuqaalkan bilaaban waxaan ka codsanayaa in channelka aad subscribe loo saarto sidoo kale gabdhalka aad furato mahadsanid sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan saaxiibada ku xiran channelkan ee had iyo jeer nala socda muuqaalada warbixinada barnaamijyada kala duwan ee halkaan aan soo gelino aan ku bilaabay warbixinta fanaanada muhashada codka Hodan Cabdiraxmaan dheere ayaa ka sheekeysay qisada hees caan noqotay oo magaceeda wadata waxaana heestan loogu magac daray Hodan Xaye Wanaag waxaana ku luuqeeyay xaajigeeda ama fanaanka caanka ah ee Mursal Muuse Cumar lamaanahan ayaa dhawaan uu nasiibku u heliyay iyagoo dib u midoobay kadib muddo dheer oo meel fog ay ku kala noolaayeen iyadoo intaasna hawada ay isku soo mari jireen dhambaale jacayl oo aad u xamaasad badan Hodan iyo Mursal ayaa hadda noqday kuwa hal meel wada jooga iyagoo sheekadooda ay noqotay toddobaadadii u dambeeyay kuwa si weyn baraha bulshada loogu hadalhayo iyagoo dadka ay ka hadlayaan qaabka labadan shaqsi ay isugu farxsan yihiin iyo sida la yaab kale ee Hodan Cabdiraxmaan ay u muujinayso jacaylka ay u qabto fanaankan Hodan waxa ay dhawaan ku soo luuqaysay hees la magac baxday niyada aan ka wada joogno oo fariin dareen xambaarsan ay ugu direysay jacaylkeeda Mursal Muuse oo markaas ay kala maqlaayeen intaasi kadib fanaanada Hodan Cabdiraxmaan ayaa soo rogashay in dib ay ugu soo laabato wadanka iyadoo oo ka degtay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland halkaas oo ah halkii uu ku noolaa xidigeeda wixii intaasi ka dambeeyay ayna baraha bulshada soo gelinayeen gaar ahaan Hodan haba u badnaatay muuqaalo kooban oo snaapka isaga soo duubtay kuwaas oo ay ku muujinayso sida ay ugu faraxsan tahay la midoowida saaxiibkeed ama jacaylkeeda ama xaajigeeda Mursal Muuse Cumar fanaanada Hodan Cabdiraxmaan dheere ayaa dhawaan waxay ka hadashay hees muran dhalisay oo marka dadka isku dhex mareen baraha bulshada taas oo wadatay magaca Hodan inkastoo waqti hore heestan uu ku luuqeeyo fanaanka Mursal Muuse heestan waxa lagu magacaabaa Hodan Xaye Wanaag qisada ay ku timid iyo sida heestan ay ku dhaxashay lahaanshaheeda ay ka sheekeynaysaa fanaanada caanka ah ee Hodan Cabdiraxmaan maadaama heeskan uu qaaday xaajigeeda Mursal Muuse bal la daawada muuqaal kooban oo fanaanada ay soo duubtay والله يوتيوبرز كويس قصليا يا هس هروح حاجة يقول قاضيو هذا الليلة بانتي مخانو بين سريع شم فهمت أنا اللي سي الحلقة اللي وسيه وأنا على هس تدرس في الحلقة مقرتينه هس هذا مبارد هذا كل هس كل قبل الله قضية ده وطلع أنا كل طول يوتيوب بس كيسيه فهمت سانا قوقعت هست